بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا واسع حديث حسين عبد الله حسابيها جودة تسير إرشاد أنا قدوميها جودة فرسمة أي وحبرشة أونلاين كا واردين تفصل لها تطبيقات يستعداد يرددوا ده مر لبعض مصلحات وحنا الله رمضان مبارك. أنت كتب مر لبعض أيام دي بدك صون نقضي sababta aan idinku soo noqdayna waxa weeyaan waxaan aragnay wali arday badan oo aan soo galin systemkii oo wali fahmin oo si khaldan wali u fahantay ID-gii ardayga iyo waxa weeyaan passwordkii si khaldan u fahantay oo sidii loo soo galiyay website-ka dhexdiisa wali aan fahmin oo aad u fahmin baan aragnay. saas daraadeed intayna imtixaanka gaadhin waxa ka horeysa inaynu isla fahanno dhammaanteedba haddaynu nahay ardayda fasalada 8 iyo 7 iyo waalidiintaba inuu isla fahanno halka la soo galayo iyo waxa weeyaan sida casharada loo daawado username-ka iyo password-ka sida loo isticmaalayo iyo waxa uu yahay username-ka iyo password-ku. marka inta isla fahanno ayaynu u gudbi doonaa inaynu imtixaan galno. imtixaanka kelimayno ilaa la fahmo oo ay ardaydu soo wada galaan oo waxa weeyaan website-ka ay soo wada dhex galaan ardaydu imtixaan kelimayno. saas daraadeed meesha imtixaanka la soo dhigi doono waxa weeyaan in la fahmo oo la barto oo si fiican loogu celceliyo ayaa muhiima. kadib ayaynu imtixaanka geli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. haddaba haddaynu hore u soconno ardayda aan weli fahmin aan soo gelin website-ka ayaan la hadlayaa oo ninka si gaar ah u la hadlayaa. marka ardayda guud ahaan waxa weeyaan fasalada 8 iyo 7 waxaan leeyahay marka hore waa inaad soo kicisataan mobilka browserska kugu jira ee Chrome-ka iyo Firefox iyo Internet Explorer-ka. kadib waxaad ku baaraysaa halka search-ka laga baaro ee xagga sare ayaad waxaad ku baaraysaa magaca Irshad Schools ee sidan u qorma ayaad ku soo qoraysaa halka www.irshadschools.com. inta markaad halka ku qorto ayaad markaa enter oranaysaa search baad oranaysaa. markaad search tiraado enter tiraado waxa ku soo baxaya form-kan ayaa ku soo baxaya page-kan ku furmaya. marka intaas ku soo baxdo kadib waxaad sameynaysaa halkan hoose eegaysaa waxa soo bixi doona qaybihii dugsiyada irshada ka koobnaayeen sida dugsiga sare dugsiyada hoose dhexe. marka adiga waxa ku khuseeya waxaan la hadlayaa in waa fasalada 8 iyo 7 waxayna khuseeyeen in doorano dugsiyada hoose dhexe ayaan dooraneynaa. marka aad iskuulkaaga doorato kadib waxaad sameynaysaa click ayaad ku dhufanaysaa iskuulkaaga waxa ku soo baxaya fasaladii uu ka koobnaa iskuulkaagu sidoo kale grade 8 grade 7 iyo 6 iyo 5. haddaad markaa doorato fasalka aad tahay oo grade 7 tusaale ahaan doorato oo ku dhufato grade 7 waxa ku soo baxaya form-kan ama sawirkan ku soo baxaya. marka markaad fasalkaaga ku dhufato ayuu form-kan ku soo baxaya. haddaba ardayda ayaan la hadlayaa iyo waalidiinta ardayda mas'uulka ka ah meesha ay mushkiladu ka taagan tahay waa halka aynu u soconay inaguna ugu soo celinay video-gan mar labaad waxa weeyaan ujeedada ugu soo celinay video-gan mar labaadi waa halkan wali arday aad u badan oo aad nabarkoodu badan yahay ayaan wali soo galay systemkii. haddaba arday waxa muhiim ah waxa weeyaan ID-ga ardaygu waa ID-gii markii horeba iskuulkaaga aad ku isticmaali jirtay aad ku xaadir jirtay roll number-kii iskuulkaaga aad ku xaadir jirtay weeyaan. password-ku si laakiin uu ka duwan yahay oo isagu waa number sir ah oo waxa weeyaan qofna aanu qof la mid ahayn. saas daraadeed halkan si khaldan ayay u fahmeen ardayda qaar oo waxay u fahmeen in ID-guna uu yahay username-ka halka la gelinayo oo ID-ga ardayga ah number-kan telefoonkanina uu yahay password-ka halka la gelinayo. arrintu sidaas ma aha. halka imka iska ilaaliya waxa weeyaan ID-gu waa sax oo halka la gelinayo laakiin password-ku waa number lagu soo diri doono oo qarsoon oo laakiin mobile-kan lagu soo diri doono waana la soo diray ficlan. saas daraadeed waa inay aanay u fahmin ardaydu in ID-ga iyo mobile-ku ay isku noqonayaan username-ki iyo password-ki. midda labaad arrin kale si qaldan u fahmeen baan u sheegayaa waalidiinta iyo ardayduba number-kan halkan ku yaala macnaheedu ma aha mar haddii lagu soo diray username-ki iyo password-ki lagu soo diray kan baa lagu isticmaali karaa macnaheedu ma aha. waa khalad arrintaasi. waalidiin badan iyo arday badan baan soo weydiisay su'aashaas oo waxay leeyihiin aniga number khaldan baa liiga sameeyay numberkii hooyadii baa lagu sameeyay ama numberkii aabahay oo meel fog jooga lagu sameeyay waan kala fognahay saas daraadeed iga bedela mobilka oo mobilka la igu sameeyay bay leeyihiin. arrintu saas ma aha. mobilkani muhiimadiisu waa mobilkii computerka nagu jiray anigu iskuul ahaan haddaan maamulka nahay aanu haynay ee computerka nagu jiray marka message-kii maan ku soo dirnay mooyaane macnaheedu waxa weeyaan hadaad hesho user-kaagii oo ID-gaaga iyo password-kii lagu soo diray mobilka hadaad hesho mobil kasta oo kale ayaad ka isticmaali kartaa.
computer kasta oo kala isticmaali kartaa sidaas daraadeed waxaad hore u ogtihiin inaan ku soo dirnay faylka waxa weeyaan PDF-ka ah ee liiska artooda ku jiraan ayaan hore u soo dirnay WhatsApp-yada marka in la xafido uma taasi ay ujeedadeedu sidaas daraadeed gaartay badan way heleen wayna xafideen wayna isticmaalayaan markii inta aynu sameeynay waxa ka iyadana la sameeyay in mobilada waarinta lagu soo diray message bal soo diray message-kaasi waxa weeyaan wuxuu ka koobnaa ID-ga ardayga oo kan ah iyo password qarsoon oo sidoo kale tusaale ahaan noqonaya ID-ga ardaygu sidoo noqonaya waa 4083 oo ardayga u sareeyo salaynimada laakiin passwordku waa wax qarsoon oo cid waliba arki karta maaha marka labada martaad hesho waxa weeyaan arday iyo waalidow martaad labada hesho waxa weeyaan mobilka doontaad isticmaali kartaa waxa weeyaan computerka doontaad isticmaali kartaa laakiin iyadana waxa kale oo muhiim oo idinka digaya in aydan isku badin mobilada haddaad laakiin mobilada badan kulba ku eegto uu ka xidhmaya taana iska ilaaliya taasina waa digniin aan siinayo marka labada martaad heshay halkana ID-ga geli halkana passwordka lagu soo diray adiga gaarka ku ageli kadib markaad gelisaa enter tiraado maxaa soo baxaya waxa ku soo baxaya marka gudihii baad gelisaa oo fasalkaaga tusaalaan gariirsan marka dooratay gudihii baad gelisaa oo waxa weey maadooyinkii gariirsanka lagu dhiganayay ee 9 maado ayaa ku soo baxaya kadibna ka sii dooro maadada aad u baahan tahay oo waxa weeyaan Carabiga ka sii dooro tusaalaan marka ku dhufato Carabiga waxa ku soo baxaya casharadii la dhaxdhigay saas daraadeed marka kan ku dhufato casharkan furtiraado waxa weey waxa ku soo baxaya video-ga ku bilaamay waa halkii u dambeysay markuu video-gu bilaamana waxa la wax ku hadhay ma jiraan waa inaad daawato video-gii iyo casharkaagii haddaba mar haddii aynu isla aragnay iyadoo tiiriya meesha la soo maray sida loo soo galiyo iyo username iyo password sida loo isticmaalayo aniguna iyadoo tusaale aan tuso sida loo soo furayo internetka loo soo galiyo halka waxa soo kicinaysa Chrome-kaas soo kicinaysa kadibna www.ayad ku qoraysaa irshadschools.com markaad inta ku qorto ee baadho ee search saada enter tiraado formkan ku sheegay ku soo baxaya dabeedna adigu ka dooro ardayow dugsigaaga waa dugsiga hoose dhexe dabeedna galleries baan ka soo dooranaya kadib markaan galleries ku soo dhufto waxa weey waxa soo baxaya fasaladii bay soo baxaya fasaladana galleries baan ka soo doorto salahan okay markaan galleries baan doorto hadaba galleries baan ku dhufto ayaa waxa dhacaysa inuu igeeyo halkii lagu qoriyay ID-ga iyo passwordka ID-ga hadaba aan xafisanahay iyo passwordka xafisanahay ayaan halkaas sarna ku qoraya halka username-ka ID-ga baan ku qorayaa markaan ku qoro ID-ga halkana waxaan ku qorayaa passwordkaygi kadibna sidaas ayaan maxaa ku oranayaa enter baan sidaa ku oranayaa dabeedna waxa dhacaysa gudihiiba markaa geenaya marka gudaha geeyna waxaan arkayaa maadooyinkii aan u baahnaa marka halkan ka soo baxaya dabeedna taan doonaya markaa ku dhufo Carabiga naxwa ayaan doortay ka soo qaad markaan Carabiga naxwa doorto waxa dhacaya maadooyinkii ku jiray sidii aan soo sheegay tusaalaha soo siiyay ayaa ay soo baxaysa dabeedna maadada casharka koowaad ku dhufo tusaalahaan markaan ku dhufto video-gii sidii aan sheegay ayaa ay furmaya waaniga daawada casharkii hadda casharkii ayaa ay bilaabmay sidaas ayaan ku daawanay markaa okay hadaba hadaan isla fahnay waalidiinta iyo ardayda sida casharka loo daawanayo waxay noo harayba waa inaan soo galno oo aynu gudaha soo galno oo aynu daawano casharada kadibna imtixaankuna saas oo kale halka casharka la soo dhigayo ayuun baa la soo dhigi doonaa imtixaankana hadaynu kuntiye gabagabadii aan u gudubno waxaan ku wargelinaynaa waalidiinta si aynu imtixaanka u qaadno ugu dambeyn maalinta sabtida ah waxa waalidiinta laga codsanaya in ardaydoda ka caawiyaan sidii ay u soo gali lahaayeen website-ka sidoo kale ardayda aan wali helin ID-ga iyo passwordka waxa loo sheegayaa oo lagu wargelinayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula soo xiriiraan nambaradan halkan hoose ku qoran si loo siiyo ID-gooda iyo passwordkooda kadibna aynu u qaadno imtixaankii online-ka ahaa hadii Ilaahay yiraahdo marka ay ardaydu fahmaan ee ay soo wada galaan website-ka dhexdiisa fadlan la soo xiriir nambaradan waa labada nambar oo mid waa kayga waa ka arkaysan waa saxdiid ka kalena waa guuleed oo maamulka qaybta inamada labada nambar la soo xiriira kadib marka ardaydu soo wada galaan ee ardaydu ay wada fahmaan meesha la soo galayo ay casharadii daawadaan ay si fiican u fahmaan ayaa waxa dhici doonta insha Allah taala inaynu sabtida ugu dambeyn hadaanu ka soo horeynba in ugu dambeyn sabtida aynu qaadno imtixaankii online-ka oo sida lagu diyaar garoobo intaas ku soo gabagabeynaya hadalkayga ilaahay baa mahadle wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dugsiyada al-irshaad school